رياضهن هلو وقميو حور حيل زيد وأنيجي الصلاة بتاي ما تكفي عنتهين. Okay, so شاكية أو كسابسن and شحذا ده محل إداها أخرسكا حدقسكا أيين ديبو قلابنا مانتا والله بالله وحبا الصعودة ما فهميسين إذنكيا. Anyways waxay ku saabsan tahay tani meeraha weyn waqtiga dheer qaata in waduunka ku soo wareego ama de maxaa la yidhaahaa universe-ka ku soo wareego orbital planetkiisa kan idin sheegayo Uranus la yidhaaho 4 sano buu qaataa oo Uranus baa la yidhaahaa marka waxaa la yidhaha waa planetkii energy-giisu waxay ku saabsan tahay radical change ama de isbedel xoogan bay ku saabsan tahay iyo innovation, new innovation wax soo saar cusub hal abuur cusub new energy way markuu de roundkiisa dheer ee 84 years ka uu soo sameeyo oo planetyo imika ku saabsan de dadka iyo dabeecadooda oo maxaa la yidhahaa berigu change-ka weyn keenayo 84 years ka ayaa imika lagu jiraa waxaanad ku fahmaysaa in waqtigaa lagu jiro taariikhda dib ugu laabo waxa la yidhaahaa wax kastaba 3 generationka 100 sano ay qaadataa 3 generation waa 100 sano wax dadka lagu bedelo ma fahantay adiga aabaha iyo awowga hadii laga soo bilaabo marka dadka 3 generation baa la yidhahaa inuu ku bedelno inuu ku baabiino marka waqtigii baa lagu jiraa oo de 3 generation gaasna hadaa 25 years u dhaxaysid waxay noqonaysaa meelaha 75 to 100 years ma fahamteen so waqtigii baa lagu jiraa inaguna hadaynu Soomaalihan dib ugu laabano waxaad isweydiisaa especially dhinaca waqooyi 1800 iyo meelaha 30kii iyo 40kii maxaa ka socday dhulka waqooyi adduunka yaa maamuli jiray xeebaha yaa u tali jiray yaa xoog lahaa we know one particular guy oo ku saabsan idoornimada wax kala iibsiga oo markabkiisu berbera iyo waxa la oran jiray hadaa 10 marka berbera ku aragtid 7 isaga iskale ninkaaye big merchant ship owner aha line badan iska lahaa saylacna u talin jiray the journal imika Djibouti noqonaysana fulaheeda hayay ma fahantay ninka waa waqtiga khadka laga saari doono oo badda casi qasmi doonto ama de meeraha marinka waxa maray qasmi doonaan ma fahanteen so waa 18 isaga waxa laga saaray meesha 1860 laakiin wixii cusub fikradii cusub baa mushtarnimada innovative ka isaga bariga la yimid radical change oo waa markuu Uranus ay de roundkeedii weynaa soo samaysay oo saynankan imkan ku sheegi doona ay ku jirtay waxay ahayd 1830 iyo 1840 meelaha ayay ahayd ma fahanteen hadaad ku dartid another 85 years maxaa soo baxaya waqtigaakii daraawiishta soo baxaya oo de waatii soo gabagabaanaysay markuu soo laabtay Uranus again oo ahayd 1920 ilaa iyo 1930 marka waa tii heshiiskii ilig la saxeexay oo de ku saabsanayd baa mushtarnimada oo Ingiriisiga lagu lahaa anagu xoolo kuma hayno aad berbere ka dhoofisid ood askartaada ku biilisid immigratii saddexaad baa lagu jiraa oo aad arkaysaa waxa ka socda badda cas marka taariikhdu iyada isqorta wayna soo laabataa laakiin hadaad fahmaysid iyo hadaad fahmayn de aday ku taalaa sama fahanteen marka sheeko xariirka Uranus hadii dib ugu yar laabano magaceeda masaaridii hore waxay u taqaanay neat ama night habeenka halka laga keenay wax habeynta halka laga keenay waa iyada way oo astaanta masaaridii hore feminine bay ka dhigeen oo naag bay ahayd ma fahanteen waxa qabaynin la yiraahdo gabna waa habeenkii marka la abis laba dhinac bay lahayd laba waji man and woman ma fahanteen labada wajiba mataanahaba waa lagu tusay masaaridii hore walaa dad aqli badan bay ahaayeen dadkii unba hadana soo laabtay de
adigu waad soo laabanaysaa waxaad ka samaysantahay energy-ga unbaa soo laabanaya ma fahanteen maybe in a different body but laakiin dee soulkii maxaa la idhaahaa nuurkii waa weli waa kii uun ma fahanteen marka need bay u yaqaaneen marna magaceeda night baa la idhaahaa marna waxaa la idhaahaa maxaan ku idhaahayay the black widow haddaad u fiirsatid because maxaa la idhaahaa spiderka spiderka ha af soomahalan dee soo caarada ma aha caaraduna soo web ma samayso mise caaradaaba webka ah anyways dee webkay samayso soo wax ma habayso liimanba badan soo ma habayso markaad wax tolaysid soo wax ma toshid ma fahanteen ilan tolka lagu sheegay baa la isku tolaya waxaa kaloo loo yaqaanaa xadhig not xadhig ama dee salaan oo kale marka waa fursad aad wax cusub bilaabaysid new idea new innovation waa planetka markuu soo laabto energygiisa kule isbedel baa loo baahan yahay marka adduunku iminka waata wada yaacaysa group kastaba waxbay ka faa'iidaysanayaan oo waxbaa riixaya siday dee u secure gareeyaan 100 sano soo socda laakiin Soomaalidii maxaa lagu weeriyay sheekada yar ee lamaanaha un bayna ka baxay waxaana la isku laynayaa hablo iyo naaga la isku laynayaa basically waa hooyaday iyo hooyada ani hooyaday iyo hooyaday baa hooyada ka fiican ma fahanteen habra la isku wada laynayaa